anigu waxaan isku tilmaamaa bridge-ka labada group oo de teamkana waan isku tiriyaa waan soo gaaray oo waan la shaqeeyay teamkiinana xagga dhalinyaradan israaciyaayo idinkana deedi ka mid baan runtii anoo idin hambalyeynaya haddana hal yaroo dardaaran aan doonayaa inaan u sheego dhalinyarada maanta saxaafadda ku jirta ee ka shaqeysa waa talaynaa faraska de usha waxa loogu dhuftaa ha ka badiyo waxaad moodaa dhaliisheena de waa inaynu inagu isu sheegno waxaad moodaa curintii iyo halabuurkii oo ah waxa ugu muhiimsan ee saxaafadda inay meesha ka baxeen oo websiteskii markaad eegto ama jaraa'idkeena markaad eegto jaraa'idka dee 8 ama 9 ka Hargeysa ka soo baxa markaad eegto sheekooyinka waa isku wada mid websiteskii baad furaysaa haddaad mid eegto kuwa kale uma baahnid inaad eegtid waxaana quruxdiisu waxay soo baxdaa marka saxafigu shakhsi ahaan horta uu tartan ku jiro ee saxafiyiinta kale uu tartan kula jiro waayo dadku way garanayaan qofka de waxa dadaal galiyay iyo qofka mid ag fadhiyay uu yiri anaan title-ka ka bedelo marka bal in saxafiyiinta gudahooda ay tartan galaan sidoo kale hay'adaha la shaqeynayaan ay tartan galaan oo telefishinada Soomaalida ayana kamid ah warka markaad eegto waxa weeyaan dawaad garanaysaa in la soo kala wada qaatay marka urintii baa meesha ka maqan bal hadda taana hal lagu dadaalo oo dadka ama waxayna akhrista ama daawada ama dhageysta waxaan u malaynayaa garaadkoodu uu gaarsiisay yahay inay kala gartaan waxa dadaal la galiyay iyo de waxa meel kale oo laga soo qaatay marka abaalkeedana way ku haynayaan subcadna waad ku helaysaa marka bal in lala tartamo saxafiyiinta kale oo hay'adda la shaqeynayaana ay hay'adaha kale ee warbaahinta la tartanto waxay la tahay inay tahay mid de wanaag badan soo kordhinaysa